anaga waxaan nahay rag shabaab ka tirsan waxaan rabaa inaan dhinto gaarigan ka dijirno waa gaari burbukisa dad badan caruur saarnaa ilma saarnaa ajnabi ku jira ajnabi hal qof ku jira dagaalada ka qayb gashan maxay ahayn ana solar bushaad laan waa laba ilma abti ilmeeda ah oo mar qura wada galay safka qawaarista sanadkii 2019 jabhad muddo soo ahaa wareer iyo waayo kala duwan isla soo maray midkood oo kaamiramaan ah ayaana muuqaal duubu u ahaa shabakadda argagixisay ee Al-Kataib halka kan kalena uu qayb ka ahaa koox burburisay buundada deegaanka Sabiidi Caanoole bartamihii sanadkan iyadoo ugu dambeynna la wada qabtay maalintoodii ugu horeysay ee Muqdisho ay soo galeen maxamed deero madnuur iyo Cabaas Gaashaan Muxsin oo afgarasho u kala lahaa Saalax iyo Buqaari ma jirto cid ku tashkiilisay ku beerista kooxda gobolka Gado ayayna ku qaateen tababar lagu baray isticmaalka AK47 GA3 FAL BKM RPG habka tuurista bamgacmeedka iyo kitaabo marin habaabin ah kadibna waxaa lagu kala daray jabhado ku dhuumaaleysanayay jubbooyinka iyo qaybo ka mid ah Kenya Deero ayaa ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay Hoosingow Janaay Cabdalle Arbacow Sabiidi Caanoole Bariiri iyo deegaano kale halka Muxsin oo isaguna ahaa jabhad uu qaabilsanaa qaybta duubista muuqaalada ee Al-Kataib dagaaladii uu duubayna waxaa ka mid ah kuwa ka dhacay Janaay Cabdalle Buule Xaaji iyo deegaanka Sabiidi Caanoole waxaana markii la qabanayay uu watay buug ay ku qorneed dardaaran ay ka mid tahay waan dhimanayaa iyo fariimo kale shabaab may ku biirayeen gobolka Baay deegaan barbaar leeraw aye markaan may leerays markaas yareeraani yaalahayn muuqaalo iyo may leerays wal television iyo wala tuulidin ninkii shidaay markaan may leerays walna hendasaa markaan uu sidii yakrani aad waliin li jarno markii aqligan inshaal gohay onan dhawan nin feedimeen oo dadweynuhu noo fikiraaw may bagoonsanay markaan intiin haas ku kitaab oo dawladda nisdiib tiku geen ka shaqeysay markaan biirada baara meelo guriyaleho baara meelmayni hareeno oo dadka ku soo oo golol ah muddo baara ni hareen awaliinu goobsiyeed bilood oo kale saasniyaay awle saasniyaay markii dambe mayl raayis maynin qaaday tababaran geli gedin ni jeey meelana ni tababar gedina ni tababar adoo gedina ni tababar la nabadi meel aroo la raana nishan meelya dadka shishal qiibsid ar markuu mayli daray in sheega dado jubbadoos jabada liinjeey ad meelka shaqeey waleel meel roob walay fasaa xaafada kooyanaga walay fasaa in sheega mayl raayis waleena baar shaqeeyo markan way ogaaday intii oo mayl raayis ana qaldana mustaqbal oo dhumahayo duur liihayo liigaladay walan jarna li agriyay haddana mayl raay lan 20 jara mustaqbalan baan ha sugaadi ad markaan sugaadi xaafado kooy wali waday haddana mayl raay markiin dam hata li waday anoo xaafaduroogo soonki markii la kubaya suuga li waday wana wali waday mootili saari barbar liiji baawra loo saari sago liiji sago mootili ngishani jilwali jey sidiyaadan insha rishbal osleyki gemi anoo fadaan adano meel ruugu meel raayis markaan Sabiidi Caanoole nishani meel dawlad haweerarti oo meel gududa ka jarno ado insha meel raay koriyos diyaarada la isla guhayaan ciidan markaan may go'aansaday hoob ilaahay bi meelba oo badbaadi intaan meel raayis aan al-shabaab ningnaan ad meel boob lu ku baahi meel raay ugunji meel leelijay kidibraan meel raay aadiyan dhumadi hata mali fasan dhumadi hafadon dhumadi meel buushmadin leeli hiri markaan ad muddo tumo iyo 3 maalmood oo kala kirinay walan meel kirneeda bol idray hafado bawal yar markaan hada la kidiyay baahi hafada saadi walan roogo meel raay markaan yarkan kale aan ila soo nortay baroogi talani maysan markaan niyaw meelun nolol min yaalo meelun meel raay nafsadeena ku badbaadayso mustaqbalku ku helaano inshaga meel raay duurku ishidudun walaawan jirnani ka taarahayo dagaalku nin giliyay hoogni nin kiweed uu ku badbaadano ambanoy ada waliina hafado roogno meel raay markii dambe hariiri weydini telefoon garaaw galni nambara weydini langaskari oo meel raay inshaga baydo roogo la hadalni meel raay meel siin weydiyay oo langa siin hariiriya oo meel qaable siin weydiyay suganari meerno narkan baydo dhulkaasi oo hatta markada meel raayis khurida lagseeno karo lagseeno shaqaysto korto ma hamara magaalada lanki shaqo fada oo shaqo nolol maalmeed fadaawna lagsiya ku helaayo walbada fadu shaqo laakiin ogoliya asmadiya meelada siin ku weydiyay suganari markan
ولين سجنو بمركان ونون هدنا قابون حافظوا إليه سيرogno nimankii mootiya qaadeen idoo ninka kooyaan al-shabaab langi walin leerino markii dam hata dharfayni oo telefoon ii waalaaytana anin meelo waysana in kuurtan aneer ad bes in sugnay walina bar sugno markii walba dan meel raaysu on hayn markii dam baad nambareen oo dansan ama al-shabaab heriidaytii wala karay warigal meeshii nambareen oo dansan bes dan markii dam yaro on ilaa intiro weydinaysun lan askar wal saasadan geegusun kiinyi dhulkaas leeyahay nooladay lan suntuka sa askari qaable way sunadan neewan askari waysan oo aan sinkariya oo dadkaasi oo saasfadaan raawre siisin weelambe is diiwaan erniyo siisin iska diibtaan ad bes markii dambe ani udayarka isla soo ni talani oo afdoorogno markaa may sarnay markii uu talani niyow kulli iidan min shal bahan is diibo leewa bes meelaya ku tabni barbaari baaro qurani sidii anta ka kooyni oo bun kooyni markaa may la raaysu iidan kan oo jagboontii jidkin yaal iidan kaasan kooyni may la raay baarka ku degni askari meelu rogay baarka nishi inta rogiya in sheegada anan kooyni garabka ku qooni meernayni oo saasana dad oo al-shabaab ku goosdeena may la raaysu mustaqbalan baagna meelni heriiriyo dadnin weelo meel qaable ni jiifadaaneer askari hay waayaneeri aniweedi lang meeli fadhiyo oo in sheegad oo talisho ay wali meejinin kiweeran darjinku meelin fadhiisi hadho aadan neer beesoob saas neeri ma maswal nuun ilayla raylan wal neeri mila ad baarka nasaaran video ii wal wareyseen oo qaadan kabaad hadan meela raay sure meynarana maysin jeene meel oo dhagan elin ho dadka la shaafa ku gooso dhagan elin ka dhawaatayaan dad la ka dhawaaya lisin jeeneer siinu saadleen fildaani markii dambe dad mayni jeere meelin waa dabarista oo siyaayad asliya marka kooyn miini un dad al-shabaab oo shaqahan sooday shaqalahan darsi musamar in ka shaqay leer miini ana ma hanbay antan dawladda nisdiu oo walaay loo dhaadii meel raay fikira in jarnaan ha ku toobishan oo xoriidaynan helo sidii lay dhawaayo banaadan lablin la dhaw moontan kooy maayna al-shabaab afaarasha mujaran jubooyinka markii loo geeyo jubooyinka ma ka qayb dagaalada ka qayb gashan maxay ahayn ana solar bushaad laan dagaal qaablam hayn an dagaal weerarowgiin saasbeel markad meeli royn yaraadan gormalin diiban an badan ani ba yaraay noogay ho bano guru iyo walaalo ilaaliyay hadan meeli ma habad markaa galaaso bolka bugdhowe adii bal ka tumay maayna dagaalana meel raayso ana ku qeybgaaday dad an kidilay ana dilan kijeysiday anin li dili ana magal baydhabo markii askari baydhabo jooga la hadashan maho magaciis Ibrahim Bayo askari aan hadaan u meeshi waan boolis yeelay saasaan maleeya askari dawladeed horta qaraabo maatiin qaraabo koreena qaraabena yoo la jooga haafidis ba baydhabo ma taqaana qof laga raadi karo ma taqaana usuwa lambarkiis ma taqaana lambarkiis kan maxaa isku tiin qaraabo maatiin adna ilma abtil meed isku maali ma ku birteen kooxda isku maalin ka biirni kidib adan walna shal dhumi ay maana dadkun talana wado wala isla wadaagne bane oo kale asaga marka ku jubin ka qeynaysa asiitu ka shaqeynay uskeeni ka shaqeeyay intaas ka soo hesheen hadda xaafado fasaha xaafado iyo sun wala fasaha hortay baroogi anin gadaala ku kooy xaafadaha kideeri xamal marka soo aadayeen yaa u socoteen oo aawacdeen un hamar markuu aan sooni hadda meel aan sooni intun ciidan kale iska dib oo ciidanka dawladda qof ciidan oo taqaan ma jiro qof askari oo baydo intuu aan ka sawa inta may marka may ka dhaladay deegaan la araw biladul aamin degmada ka sax dheere ee gobolka Baay meelaha ka barbaaray wala ka baraday kadibna al-shabaab may ku rahay deegaan la araw barbaar oo gas dheer hooseedo meelo walno qaaday bush madinin lijay bush madin may la rahay muddo bari baray roogni ku tamni bulu fulaasani saasa mal bari baray roogni walno qaay saako wan lijay afar bilood amala roogni ku tamni muaskaran ningaadi gedin lijay saddex bilood tababar qaadani tababarkaas ku baadi meel aruu la rahan lijay aruu markuu walni shal giibsidi ana keeji li 3 manaha jabhada Kenya NFD gobolka Garissa meelaha ka jabhadayay lang may la raay oo nooh la raaw oo goboladaas hayso laamu ila may la raay Garissa ya amiring nagdi markuu muddisin yaala meelaha ka shaqay wal dagaal aan ku qeybqaaday meel intaan may la raay ana keeji ka tirsanay wala huwa bedeli may lahayn bedelayn eelaamka ku hadan warbaahinta yalla ay dari muddo 3 bilood ee dowr qaaday
dowladaas markaan dhamaysatay kadib ciidankii dhan baa la sharqiibay maylii wareejay jubbada hoose liitri jubbada hoose mayl raay ma ka shaqeeyay ada lama sano amaliyeen lama sano amal mayl raay dagaal toos ah hadda mayl raay aan ku qeyb qaaday mala aan gorum ka shaqeeyay shaqaday kaamari hayti mayl raay kaamaradaas markuu dagaal toos ah hadda mayl raay lan dowladda kumada dhimaday aan hadoobi mas hadda filan aan duway li baahiyeen mijar mardhow kabiiri lamadu kun lawaati afarti aakhir shalahayd yaa mayl raay qaybtas liidari markuu qaybtas mayl raay muddo ka shaqeeyay kadibna may boogaaday intii fikirkaas mayl raay fikir galdan mayl raay yaa lamana galay unu ka galdan yadare markuu may bagalbay sheenaynaa intii adan ka dhaman wal meelaan mustaqbal raasooy isku kubaha dawladda isdiiwan geli hoob shaqooyin wala soo nakeen wala hoob ka fasatoona mayl raay magaalada isku shaqayso inay wartaan shaqayso inta ay waqti maakin ugu noolaa galbay sheen markuu saas dartee mayl raay hariira raadinay sidii laan ku sheegay lambay dhowr waadi oo adeerkay aw kay mana aabe edis dash marka ninkaas hariira idin soo raadinayna xamara hariir idin ka raadina waxay u suganda maalamooyina sugnay marka kadib markii uu waan hadana may dharayn neew sugu hariirkii lay karba jaraha in waalana sugu mar saddeexda kanagni mayna raynaa ikurahay tan horta neew boobsiskan oo dhaafa meel kooti baan misin gilina reemay lahay isin isku galaan hadana siis ugu baasan isin og yan ar abara sugni maalamooyin hadda muddo shan maalmood waa anina barshaydan sanad silan ku sheegay lan qaraawdan ma dhahay oo lan kun aadi aw kala antiruga hawaani ma yarnayniyow hariirnin raadi meel hariirnin raadi oo dawladda nisdiim fadayn nololum ku nolol korno markuu fikirkii nortilayn hakunagnay ku tibi yaalamleyn ka sabtay markuu meelahan jeenne hariirni weydiiso fadaaneer markuu hariira siin raadi isugu jaw asgarta ma dhahay walaanu mukasa ani badaleysay feeranta ma jarnay dherik shaqaysi jiray lan ku wadanka hamaranu mukasa hadro ko ibrooyin yar leeru markuu hariirkiisii weydiiyay suugiisina iska ogaynay markii dambayn eray han hariir waay markuu isdiibsiisan iska diib kortaan siin og meel raay jagboot email faasan email iska diibasan siyo hoobasan isdiib faday tan meel iska diibtan waaysan ono may go'aansanay markuu intiinu haafdoosan si rogan al-shaam dib inuu ninka nagan ono dawladda Soomaaliya hanis diib mana dawladda dalkan ono has diib no go'aansanay abani meel barbaar dheer baara kurani markuu hamara saaska koyni ciidamadan jagboontii gurgur booliiskan meel ruwaan koyni hanisdii halkan sheegay in aqoon al-shaah ku bani maleeray waan isdiibana hariirna wayni lamun hariirna wayni markuu intiinu koyno saaska diibno go'aansaneen heewan aran meelan fadhiisan wal yaraan ugu waraysadeen markuu maynarana walsi widay meel goobdan ileen oo meel dadkii habahu saamal mana wala ka baraayo la ka dhawayo lisin jeenare iclaamka dowr sax qaatan marka iclaamka qaybta ku birteen iclaamka dowr may qaadanay oo kaamirada liis baraaw kaamirada idin baray ayaa idin baray kaamirada qalabka kaamirooyinkan loo keen kaamirooyinkan mas gaabki walinga duubi oo meel raay gaabkadan gobsaas iyo sida wala soo laasan number Soomaaliya number isa ajnabi ku jira ajnabi halku fa ku jira suuna meel raay kaamir maqaabilsanaayna subaxdii jirdis oo orodkii wala sagaabilsan hal qof orome inta kale Soomaaliya asida meel lam dagaal oo meel raay arbushaada iyo dagaalka kale suun linka guuleysnay meel raay una ka jamni dagaal toos ah hada meel raay oo ana duubay oo baraabilsada ka baayay majir akwa duubtay markii habad yar aad ko horta walma ku duubnay oo meel raay markii bola ka jabay ha kuna anta kale laakiin lama arbushaada oo yar habad sileedii oo meel raay lama ka fartaytan amal waadu laakiin dagaal toos ah meel raay intii gurigaadi ana ku gigbaaday mala laangnoor madil yarka oo askariga ah bay dhaw joog oo wacdeen yoo la shaqeeyay ninkaas dawladdu ku tisiyay laakiin gaar ahaan wali isu shaqeeyo hadda meel raay anuu muu laakiin tus askari ay oo subay dhowru ya bay dhaw joog eheltiino taqaana xildhibaan ah baa waxa qof taqaana ma jira dad ana ka saaw meel raay jiraan laakiin xildhibaan lansaasimi xildhibaan ka saaw ciidanka idinka ma idin istaajiyeen mise idinka u tagay ciidanka ciidanka anaga u tag baawur ma sareed baawur saarneed baawurka meesha la istaajiyay ayagoo laami qarkiis taagna u tag marka gaariga controlkooda la istaajiyay gaariga controlkooda actis meel controlka u dhawaa halkaana laga qabtay
goobtii iyo qaabkay u shaqeynayaan labada gaari ama macnaha markii gaari ay arkaan ay soo daba dhigtaan qaabkaas ayay u shaqeynayeen jagoontiyada gurguura $100 waa 100 aan hayno maxkamadan ku soo wareejin doonaa waa 100kii ay ugu talagaleen ciidan dhan oo juhdiga lagu bixiyay dhalinyartaas meeshaas u taagan inay laaluushaan si magaalada u soo galaan sababta cabsida koowaad iyo marqaatiga cadeynta koowaad ee iyaga bixiyeen ama alertiga lagu ogaaday waa markii gacanta laga baara oo swab wax la yiraahdo ee cabsadeen kadib ay dhaheen hana laga qalay hana laga bootiyo 100kii laga qaado waaye sheegana waa sheegii gacanta loogu qaaday loogu tal sababtoo ah qof walba inuu qarax gacmaha la galay ama ka soo shaqeynayay ama waxyaabo noocaas ay cadeynaysaa swab ahaan faraha la mariyaa kadib qof walba la mariyaa waxa kale oo diiwaan geliyaan cid walba meeshay ka yimaadeen iyo meesha u socdaan iyo cid ay yaqaanaan ayaa la weydiiyaa labadan qofood qof ay u socdeenna ma jiraan qof oo sheegtayna ma jiraan waa sida hadda maxdarka horteeda ay ka sheegeen buuggan waa buugga dardaaranka waana wadana buuggan waxaa watay eedeysanaha labaad oo dardaaran waxaan rabaa inaan dhinto oo ku qoran waxaan kaloo rabaa waxyaabahaas oo dhan marka uu taxayo oo ku soo celcelinayaa oo ogol yahay buuggaadna uu watay waxtaan weydiinay meeshuu ka keenay inuu watay juhdiga iyo waxaa weeye dardaarankiisa dagaalada uu ka qayb galeen waa janaac cabdulle arbacow sabiib iyo caanoole oo dhowr jeer iyo jaziira teleefonadii ay iswacayeen ama amiirkooda faysal oo waktigii uu soo wacayo waaye telefoonkooda sababtoo ah waxay ogaayeen ama weli ogaayeen meeshay marayaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo uu la socday waqtiyada la qabtay ayuu soo wacayay ilaa waqti dambe kadib dambe waa ka joojiyay telefoonada ciidanka jagboontiyada gurguura oo deegaanka calamada ee duleedka muqdisho ku qabtay labada eedeysane labadii bishii 10aad ee sanadkan ayaa garsoorka garmaqalkan warbixin ku siiyey horta bismillaah aniga waxaa ahaa jagboontiga yarkii macnaha qofkii jooga markaas mas-uulka ah tale unuga ah aniga yar leey cabdullaahi oo askarta ka mid a wuxuu ii keenay raggan oo saaran brobukis iyo lacag $100 waa weydiiyey waxaan dhaha maxay tahay lacagta maxay tahay wuxuu dhahay raggan waa qolada argixisada al-shabaab isla markaana waxay dhaheen ifaki oo dee macnaha nafasax kadib waxaan ku sameeyey baaritaan dheeriya waxaa jira habraacyo markaas ciidanka u diyaarsan oo dee maraan habraacyada marsiiyey mid walba gaara u wareystay waxaa ogaaday inay nimankan cidna meesha u joogin cidna aysan u soconin laakiin ay iska socdaanoo dee qolo gaar ay yihiin waxaan sameeyey waxaan wacay taliya unugii markaas ambo sargaalkii iga sarreeyey isla markaana ah taliyaha operationka ee jagboontiyada guuro waa wargeliyey waxaan u sheegay in xogtan ay jirto barnaamijka uu jiro isla markaana waxaan ka yeelaynaa jawaab maxay leeyihiin labadooda mid kamid ah wuxuu isku dayay inuu inkiro inuu macnaha hawshaas amba nimankaas uu yahay oo inkiro mid kamid ah ii sheegay oo dhahay aniga waxaa ahay al-shabaab aan ka tirsanahay markoo kan ii sheegana kan kalena waa meela isku keenay labadooda waa qirteen inay al-shabaab ka tirsan yihiin u socoteen dila maxay leeyihiin nimankan meel ay u socdeen ma sheegin waxba meel uma socon nimanka inay magaalada soo galaan ay rabeen gaarigaan ka dijirna wuxuu ahaa gaari burbukisa dad badan caruuraa saarnaa ilmaa saarnaa gaari dad kale la saaraa miya dadaa la saarnaa gaarigaha ana gaari laftiida hataa gaariga waa laga keenay baarisan ku sameeyey gaarigii nin walbo amba qof walbo gaariga saaran meesha u socday iyo tilmaamtiisa uu sheegay ayaga laakiin waxyaabaha ugu shakina waxaa ka mid ah meel ay u socdeen ama cid ay u socdeen ama la xiriiraya ma aysan jirin lacagtan intee ka timid lacagta kulley lacagta waxaa ii keenay askariga ii keenay wuxuuna ii sheegay inay ayagu dhiibeen $100 inay ayagu dhiibeen si uu fasaxo sababtoo ah askariga wuxuu joogay jagboontiga qaabka u dhigan waxaa waaye 25 baaritaanka dhexda iyo kofar soo marka asiga wuxuu joogay meesha hubinta ugu horeyso ee baarinta lagu hubiyo joogay soo marka waxay ku macaamileen oo ii soo gudbiyey saas ugu keenay iyaga ma ku sheegeen inay isdhiibaan rabaan ugu yaraan maya marna ima sheegin anagoo ka tirsan ciidanka MVCB ama sida loo yaqaano jagboontiyada gurguura waxaan shaqo maalmeed noogula diray galbeedka magaalada muqdisho howl maalmeedkeena anagoo ku jirna oo jagboynta inoo yaala degmada Garisbaalley gaar ahaan Elbiri oo markaas halkaas aan ku hubinaynay gawaarida magaalada soo galaysa iyo sidoo kale dadka shacabka ee gawaarida saaran
si markaasi aan hubin aniga qaasatan waxaan ku qornaa 25 oo markaasi waxaan qaabilsanaa inaan indheeyo gawaarida gaarigiis laga shakiyana in shacab ka saaran marka laga dejiyo si fiican loo hubiyo abaara 10kii barqanimo waxaan soo galay gaari ku baysan ama xawaaro sare ku socda oo brabak sacdaan ah markaas gacanta intaan u hayto istaagi waayay laamigan dhex istaagay markaas gaariga qaboojiyay waa istaagay marka ugu horeysa waxaan su'aal weydiiyay darawalka gaariga kaxeynay su'aashii ugu horeysa weydiiyay waxay ahayd halkee ka socotaa halkeen u socotay wuxuu ii sheegay inuu ka soo baxay Afgooye kuna jeedo magaalada Muqdisho qaasatan ex control Afgooye waxaan weydiiyay su'aal ahayd dadka ku saaran halkee ka soo qaaday wuxuu ii sheegay in dadkaas uu ka soo qaaday Afgooye ku celiyay su'aasha isla sidii uu igu jawaabay waxaan ku amray darawalkii in gaarigu ka soo dego qaybta dambe gaarigana uu furo si baaris dheeraad ah gaariga loo mariyo qaybta baarista dheeraadka gudaha gaarigu soo gudbiyay waxaa saarnayd 5 nin oo asaga darawalka uu 5 ku yahay iyo 4 haween ah gaarigii ayaan ka soo wada dejiyay waa qiimeeyay marka meesha fadhiya waxay saarnaayeen qaybta dambe ee gaariga ayagoo markaas uu ka muuqdo cabsi iyo walwal aad u xoogan geesaan ula baxay waxaan su'aal baan weydiiyay halkee ka timaadeen waxay sheegeen inay ka yimaadeen Afgooye mar labaad baan weydiiyay halkee ka timaadeen ba idinka Afgooye ka yimid baa markaas ay sheegeen in had mar labaad Afgooye ka yimaadeen markay halka ay mareysay baa mid kamid ah intuu yimid walaal ninka gaaban oo gooni ila baxay yiraniyo anaga waxaan nahay rag shabaab ka tirsan waxaanu ka nimid qansax dheere meel la yiraahdo haddana waxaan ku sii jeednaa meel la yiraahdo Sarakuusta waxaa weydiiyay yaad ku socoteen waxay sheegeen ciidamada inaysan ka garanaynin meesha ay ku socdaan markaas waxaan sameeyay taliye unuga markaa howlgalka watay oo ninka Maxamed Yuusuf baan wargeliyay taliye unuga intaan wargelinayay mid kamid ah midka dheer baa yimid lacag warqada soo wada yimid oo fartiga saar maxay ahayd baan lacagta wuxuu yiri inuu magaalada waa ku cusubnahay dadna kama naqaano waxaan nahay waa ku sheegnay in iska kaydaa halka markay mareysay taliye unugii baan ku wareejiyay iyadoo sidaa xaalad ragaa la wareeg shaqada sidaa baa u gudanay saas bay ahayd ayaga markay ku sheegay inay shabaab yihiin ee qansax dheer ka yimideen ma kugu daran inay shabaabka ka harayaan inay rabaan inay isdiibaan maya lacagta maxaa keenay meesha marka wad hadlaysan lacag in la dhiibo maxaa keenay waxaa keeni kartaa maadaama uu ninka cadaystay inuu shabaab yahay oo taliye unugiina aan u yeeray inta taliye unuga uusan soo gaarin baa waxay doonayeen marka inay gaariga anina aan fasaxo sida lacagta aan ku qaato ee magaalada sida ku soo galaan lacagta markuu ku sheegay waa lacag ku jirto EFC miya way lacag warqad ahayd lacagta uu watay kala ma dhaqaaqin baan iyadoo waraaq watay waxaa ila soo xiriiray taliye unuga ku qornaa qaybta galbeed Maxamed Yuusuf Axmed wuxuu ila wadaagay warbixin ku saabsan inuu gacanta ku haayo 2 nin oo ka tirsan jabhadda ururka nabadiidka ee al-shabaab warbixinta markuu ila soo wadaagay sida uu nidaamka ciidanka nafaraayo waxaan amray in uu baaris faahfaahsan ku sameeyo goobta uu joogo kadibna uu igu keeno fadhiga si anigana aan u dhameystiro habraaca intiisa kaleeto ilaa hoggaanka baarista anigana waxaa la wadaagay taliyaha fadhiga Cornel Maxamuud Salebaan Maxamuud Qasuusi shaqadii taliye unuga markuu soo dhameeyay oo checkpointkaas uu soo dhameeyay wuxuu ii keenay 2 eedaysane ee kala ah Maxamed Deerow Manuur iyo Cabdi Abbas Gaashaan iyo 2 telefoon oo dhicilaa $100 bac iyo boorso ay wateen taliye unugii waa weydiiyay lacagta meeshuu ka keenay wuxuu ii sheegay in 2 nin kamida uu lacagta si hoose ugu dhiibay askarigii ku qornaa 25 hal mar hadaa dib u laabto ciidanka markay checkpointiga dhigtaan waxay wataan 2 gaari uu horeeyaa midna uu dambeeyaa 2 gaari inta u dhaxayso waxaa jooga 2 shakhsi oo la dhaho baaritaanka gaadiidka dhinaca midig waxaa ka sii taagan baaritaanka shakhsiga oo 2 qof kale ah 25 kana waa meesha checkpointiga laga soo galo waxaa ka shaqeysa 2 askari waa askariga koowaad ee wareysiga ku sameynaya gaadiidka wadada maraayo
iyo askari ku shaqale inuu ilaaliyo ninkaas marka askariga koowaad ee maalinkaas saarnaa shaqada checkpointkaas wuxuu ahaa Cabdullaahi kafarna waxa uu ahaa askari kaleeto kadib waa wareystay nimanka marka la ii keenay intuu wareysiga socday waxaan baaray alaabtooda mudan gudoomiye waxa cajiiba markaan alaabtooda baaray waxa ku arkay buugaagtaas ay ku qorayeen dardaaran waxaa meeshaas ka muuqato in ay yihiin dad soo shaqo tagay inay carqaladeeyaan amniga iyo nabadda ka jirta magaalada Muqdisho maadaama qofka asoo ka tirsan ururkaas haddana watay dardaaran waxyaabaha hadda ka xasuusto dardaarankaas waxaa ka mid ah dardaaran oo gaara mujaahidiinta weerar lagu qaadayo maqaayad waxaan rabaa inaan dhinto waxyaabihii aan ka xasuusto ee buugaas aan ku arkay markaan macluumaadkii iyo warbixinadii ka diyaariyay taliyaha fadhigan wiila joogay waxa ku wareejinay hoggaanka baarista dambiyada gaar ahaan qaybta baarista intaas ka ogahay mudan gudoomiye xidigla baare juweeriyo oo ka tirsan hay'adda dambi baarista booliska ee CID ayaa maxdarkan ku soo bandhigtay natiijadii ka soo baxday baaristii ay ku sameysay kiiskan mudan gudoomiye eedeysanayaasha waxay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab muddo 5 sano ah hadeertaana waxay u soo socdeen bedel oo waxa loo soo bedelay gobolka Banaadir markii la soo qabanayo waxay soo mareen eedeysanayaasha kambasi ay xukumaan ururka argixisada al-shabaab waxayna u soo gudbeen gobolka Banaadir gaari ay ka soo raaceen Buule Madiino Beledul Amiin waxay uga hareen afgooye ayagoo ka dhuuntay askarta checkpointiga joogto kadibna waxay soo raaceen gaari kale oo Probox ah nasiib wanaag waxa gacanta ku dhigay ciidamada checkpointida guurguura oo deegaanka Albir ka hayay howlgal sidaas ayaana lagu soo qabtay eedeysanayaasha ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Iimaan ayaa maxkamadda ka codsaday in labada eedeysana ay ku xukunto qodobadii ay ku soo eedeeyeen mudan gudoomiye ka soo raal maxkamadda sharafta leh maanta waxaan u fadhinaa kiis maxkamadda waxaan hor keenay kiis laba eedeysane oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana waxay ku eedeysan yihiin inay ka tirsan yihiin urur argagixiso ah tababarkaas oo lagu soo siiyey sida loogu dagaalamo hubka noocyadiisa kala duwan waxaan hor keenay maxkamadda markhaatiyaashii soo qabtay waxaan hor keenay qiraaladii laga qoray si waafaqsan 68 iyo 149 ee ku faahfaahinayeen in eedeysanaha koowaad Maxamed Deerow Manuur oo magaciisa afgarashada la yiraahdo Saalax oo ku beeray 5 sano ka hor in muddana uu ku sugnaa goobtaas wuxuu ka qayb galo afkiisu qiraal uu ku yahay ilaa 5 dagaal oo ka qayb galay wuxuu kaloo qiraal ku yahay inuu tababar soo qaatay wuxuu kaloo qiraal ku yahay in uu isagoo halkan u soo socdo lagu soo qabtay baaris markii lagu sameeyay kadibna uu hadeertan isagoo qofna cidna ku qasbayn ilaa hadeertan uu la taagan yahay al-shabaab ka tirsan yahay eedeysanaha labaad isagana wuxuu ku beeray waqti ay ku beereen taariikhdu markay ahayd ama December 2019 ayay ku wada beereen albadri ay kaga beereen eedeysanaha labaad sidoo qiraalkiisa ama ku sheegayay inuu ahaa jabhad soo dagaalamay kadibna loo dalacsiiyay inuu la shaqeyn jiray alkatay muuqaalo badan uu duubi jiray wuxuu ka sheekeeyay inuu loo xushay qof orod badan caata ah wuxuu kaloo sheegay in markuu duubista uu sameynayay fiidiyoda dagaalada uu ka qayb galayo iyo sidoo u duubi jiray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ugu weyn kiis marka la baarayana uu yahay qiraal hadda tamada horteedana ay ka sheegay si waafaqsan 104 oo weli ay sheeganayaan in al-shabaab ka tirsan yihiin sidaas daraadeed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa maadaama ay jibiyeen nooc cadaatay inuu ka mid yihiin marka hore ka tirsan yihiin tababar soo qaateen waqti dheerna ay ku jireen in ay gumaadaan ama ay la dagaalamaan dowladda buundadii aan soo bandhignana arkayseen maadaama dagaal xoogan lagu qaaday duufaanta aamusan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku qaadeen ka soo carreeno farxad ay yihiin halkaana lagu qabtay
si xeeladaysan oo farsamaysanna lagu soo qabtay markii gacanta wax laga saaray ay qirteen ay dhaheen annaga waan nahay ay isku dayeen inay ciidanka laaluushaan ay dhahaan hanala fakiyo taas ayay macnaha caddaynaysaa inay marka horeba awalan lagu ogaaday inay ka mid yihiin ururka al-shabaab sidaasna lagu hor keenay lagu wareejiyay qaybta baaris dambiyada sidaas daraaddeed aan hadalka maxkamadda ku badanaynin waxaa maxkamadda ka codsanayaa in lagu qaado qodobadii aan ku soo eedayn maxkamadda waa mahadsanta qareennada eedeysanayaasha ayaa sheegay in muwakkiliintoodu ay ahaayeen isu soo dhiibayaal loona keenin caddeemo lagu qanci karo maxkamadda ayayna ka codsadeen inay dib u siiso xorriyaddooda mudana guddoomiye garsoorayaal labada eedeysane waa la waraystay waxay ku jawaabeen dood sharci ayaan qabnaa dooddiina waxay ku sheegeen markii ugu horreysay oy nimankaas u tegayeen doorasho tooraa in aysan ugu tigin ee la qasbay waxay sheegeen inay u bigi waayeen haddii ay u bigi waayeenna ay ka soo tageen nin la yidhaahdo ibraahim bayow oy qaraabo yihiin xiriir la sameeyeen nasiib darro xiriirka oo u suurtogeli waayey ciidanka amniga ee jooga meeshi ay beledka ka soo gelayeen inay ayagu lugahoora ugu tageen ayay sheegeen una sheegeen waxay yihiin xiriirna ay u sameeyaan ciidanka askari ka mid ah labada kaleentood ma sheegin balse ninkii mataqaan baabuurka dul tegay wuxuu sheegiyey inuu gaar ula baxayey eedaysanayaasha eedaysana ka mida ee uu yidhi war annagu shabaab ayaan nahay waxaana u soconnaa xiriir ay heleen fursaddii haddii ay heleenna waa ka soo tageen ciidamadii amniga inay isu soo dhiibeenayna sheegayaan ayagoo doonaya ku qanci waayo meeshii ay joogeen doonayana in ay mataqaan hay-adaha amniga wax la qaybsadaan hadafkoodu uu yahay inay u yimideen ayay sheegayaan mudana guddoomiye garsoorayaal haddii nimankani waxay caddayhayaan in aqoon uma laha nimankan inay shabaab ahaa jireen ma cadday karaan aqoon uma lahan wixii ayagu ay u sheegeen waayo waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen ayagaanaba qiraala inay sheegeen oo ah inay shabaab yihiin kana soo tageen maadaama iitaarka horaa ama doorasho tooraa hore shalay aynan ugu tegin annay u bigi waayeena ka soo tageen maxkamadda wakhtiga ku dheeray maayo waxaan codsanaa inta ay qiraal yihiin oy maxkamadda u sheegeen in ay nimankaa ka soo tageen una bigi waayeen hay-adaha amnigunay sheegayaan shabaabaan nahay socodkeennuna waa nuucan inay yidhaheen maxkamaddu intaas inay u tixgeliso wixii gebagabada ah waxaan u dayahaa saaxiibkeed daliil sharciyeedeed ayaan u haysanaa mudane guddoomiye oo ah xeerka la dagaalanka argagixisada low lambar 17 ee soo baxay low lambar 17 ee soo baxay 2019kii qodobkiisa 18aad oo uu dhigayo qof ka mid ahaa ama ku lug yeesha urur argagixiso haddii si iskood ah isku dhiibo oo uu muujiyo toobadkeen la ciqaabi maayo waxaa la siinayaa cafis ama dhimis ciqaabeed iyadoo lagu salaynayo xeerka dembiyada iyo kaalinta uu ka geystay xeerka ciqaabta sidoo kale qodobkiisa 108 ayaa ka hadlayo isu soo dhiibista toobada sidoo kale mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh dastuurkeena federaalka qodobkiisa 87 ama 87 xarafkiisa h
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa awood u siinaya inuu fidin karo cafis ayadoo ay ka faa'iidaysteen wiilashani maanta isu soo dhiibay cafiskaasi. sidoo kale mudane guddoomiye qodobka 25aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay fal si qalad ah loogu qaato dembi qof kasta oo gala fal aan dembi dhisaynin iyadoo si qalad ah loogu arko inuu fal dembi yahay lagu ciqaab mudan maayo. marka nimankaanu fal dembiga oo loo saari maanta la leeyahay shabaab ay ka tirsan yihiin waa mid si qalad ah loogu arkay. sidaas daraadeeda maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa si xushmadi ku jirto in eedeysanayaasha aan lagu xukumin ciqaab buuxda maadaama ay si iskood ah isu dhiibeen oo ay muujiyeen toobad dhab ah, in lagu daro barnaamijka dib u dhaqan celinta iyo dib u dhaxgalka bulshada. gabagabadeyda mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan ku gabagabeynayaa si waafaqsan qodobka 122 in la cafiyo lagu xukumin wax ciqaab ah loona geeyo sidii ay u soo dalbadeen inay galaan dhaqan celinta dawladda kuwa ayaga la mid ahna ee soo socdana ay ugu noqoto si tusaale ah ee ugu daydaan. maxkamaddu waa mahadsantahay. maxkamaddu waxaa ka codsanay maxkamaddu waxaan ka codsanaa inay cafiso maadaama aan ka soo doontay dawladda dalka Soomaaliya manaha inaan oo afis aan ka soo doontay oo shabaab saas ugu soo tagay. marka waxaan ka codsanaa inay afis ii fidiso maadaama hadda oo nin oo falkii uu ku jiray oo markii hore uu ku qaldanaa uu ka soo laabtay oo ku dhahay falkaas waa ku jiray laakiin waa ka toobadkeenay waa ka soo laabtay ku dhahay. maxkamadda waxaan ka codsanayaa maadaama aan ahay qof soo dhiibi wax dhibaatana mooti waxaan ka codsanayaa si naxariis leh oo bini'aadanimo inay iigu naxariisato oo xorriyaddeeda ay siiso. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray. cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho.